عذاب القبر مركا إنه جرو أو حق يهي أو دينتنا كتر سيهي ومسألة إجماع بين أهل البدع وأهل القبلة مسألة إجماع بين أهل البدع وبين أهل السنة والجماعة خلافنا كما تشيره هذا الكمرك وصل وكقر الشيخ الإمام النووي وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة صح معها معتزلة كتب تداركتين عقائدك شروح ذا مختصراتك كتب حديثك شرح ذا تفاسيرك كل واتكوار كيسان عذاب القبر وحاض فرطي وديدي معتزله وانا خطأ ضوائفته أقوال اسكو ترتون أقوال التراجم يقول التراجم اللي اسكتشرا نبنب كتورة صح معها معتزله ما انكر سنة عذاب القبر توا إلا وقادا معلومات خلطا كتب ذا كب وحده اسكا صحة ما جرت شيخ المعتزلة نيك اللورنجري قال عبد الجبار كتاب طبقات المعتزلة وفضائلهم حقوق شيء أحد معتزلة كمضوا إنكر سن عذاب القبر مجرى وذا ذراري من عمرو اللورنجري معزلي معه وقال إن الجارية اللي إذا ظهر جوجا أي ذراري ضعيف الجون ولا بحي ذراري من عمرو لله يدا هذا وواصل من عطاء ومؤسس كمعتزلة نيك أساسي أرضي وها أي عذاب القبر قد ضفري وكل جيئة ما دام واصل وشيخ ياهي ذرار بن عمرو أرضي ياهي عذاب القبر كانوا أرضي قود ضفري بخلاف جمهور المعتزلة أيام الغية بالك إن لقى خلطمي أصيغ عبد الجبار باشيغية مال كلو نقم ما قرنا هي برياضي وذات كاس ذرار بن عمرو آفذوا لي من أنك يسنقوا حكومين معتزل ديدا عذاب القبر مجروي ضعيفنا وحا صحة مركز وحكا قورنا كسو قورسو كتبت هذه المؤلفات كذا وانا شيخ المعتزلة في عصره بلا نزاع طيب كلي ما هو حاكم راعي وسيدا سكول الشيخ وذاك اللي رجع ابو عبد الله المرزباني كتاب طبقات المعتزلة احد معتزلة كان بيضه هوشا ضفرسن مجرو سيدا درت وذاك اللي رجع علاء الدين مغلطي بن قليج المصري الحنفي شارح البخاري والسنة والقرنيزان حول ورنتو ايغا صحن كتبتو سيداس كو قران waxay ahlu sunnuhu sheegaan waxba kama jiraan buu hawsha inaad fahanteen baan u malaynaya taa waa dhamaatay hawsha waa khalad hawshi ahlu bid'a iyo ahlu sunna dhan isku waafaqeen ay ahayd cadaabul qabri in la sugo maanta aynu nool lahay dunida dad badan oo islaam sheeganaya dafiraya oo mutanawwiriin iyo mutaxaririin iyo rag hormaray iyo reer magaal iska dhiga iska ilaaliya yurub iyo galbeed Soomaalida tagtay in badan oo kamid ah hawsha hadda waa ku dhaceen dhalinyaradoodii iyo ardadoodii macallimiintii wuxuu dhigayay maskaxda kaga kaajay waa afoobeen kuwa Nairobi jooga la ii sheegay inay hawsha dafirsan yihiin kuwa waxa la sheegay iyagoo islaam sheeganayo carbeed oo intay kaamirooyin qaateen wadaad la xabaali qabrigiisa kaamiro ku xidhay waxaan eegaynaa si cadaabul qabr kala cadaab haysan u aragno idab darro waxaas oo marka waa qaybiyaad shayga qaybkee shariicadu sheegtay waa in siisa loo rumeeyo hadda korna waa idin sheegay annaga iyo gaala waxa noo dhaxay waa maxay ina ilaahay wuxuu sheegay iyo rasuulkiisa aan rumayno cala ra'si wal ayn aqligeenu marka ama ha garto ama ha garan waayo ama awoodeenu bini aadanimada daciifka ha xamish ama xamil weydo hadii ruux walba wuxuu arka ama uu taabto ama uu maqlo ama uu uriyo shanta xawaasta dareemayaasha wixii laga dareemo in la rumeeyo loo hogaansamo la dafirin aadamo dhan baa ka siman gaal iyo muslimba aduu maxaa la dheertahay ilaahay rasuulkiisa wixii ka yimaadee sugnaada inaad aamintod caqiida ka dhigato haddii ay shantaada indhood iyo farahaada iyo maqalkaada iyo dhagahaada macallin ku yihiin adiga fircoon iyo abaa jahl waxba isma doorisaan ilaahayna wuxuu yidhi waladiina yu'minuuna bilghayb aliimaanu bilghayb وعلوم الأنبياء وأخبار الأنبياء والصادقين وصلحة أحاديث وريه إلى الرميان قال الله الرهادة ضفرتوه كاميرا لسو يستاقتوه هذه قال كسمت بات واحد إسدور رسالة مجهور طوال اللي اسكوه قال مسألة اللبات فتنة القبر عذاب القبر باكالة جرة فتنة القبر وسؤالها اللي هو الديني مركو اللي هو حباله امتحان كأدقليسا فتنة القبر اللي هذا إلهي باللقوي الدين
rasuulka lagu weydiin diintaada lagu weydiin waxaad aaminsayd baa lagu weydiin imtixaankaas ma rabbuka wama rabbuka wama diinuka wama nabiyuka ayaa waxaa la yidhahdaa fitnatu lqabri cadaabu lqabrina imtixaanka marka lagaa qaado ood ku dhacdo waxa kugu bilaaban weeye imtixaan soo lagaama qaade imtixaan dad ku baaso janno yar iyo naxariis iyo nacuuba ilaahay kuu furaya daaqada lagu furaya qiimo badan ilaaha nagu daree haddii imtixaankii aad ku dhacdana cadaab baa kugu bilaaban abeesooni iyo masas baa soo fakan qiiqi jahannabaa la soo dayn budh baa kugu bilaabanaya biro waaweyn malaa'ig baa kaa shaqaysa malaa'ikatu alcadaab munkar iyo nakiir baa marka hore horta kaa falaxaanba intaan meel la gaadhinba marka cadaabu lqabri iyo fitnatu lqabri way kala duwan yihiin fitnatu lqabri wayn isfanay la tahay cadaab lqabri waa kala baxeen fitnatu lqabri yay qabsataa masala khilaafiya bayn alculamaa alimaam ibn cabdilbar wa qabla abu cabdillahi tirmidi saaxibu nawaadir اlusuul ad garanaysaa ninkii suufiga ah ee zaahidka iyo imtixaanka ah waagi dambena qolyaay dhen waaba hawlo kale ku sheegeen almuhim labadaa wadaad iyo wadaada ku raaca waxay leeyihiin fitnatu lqabri waxay gooni ku tahay muslimiinta iyo munaafiqiinta adduunka jooga dadka mu'miniinta ee dhabta ah ee saadiqiinta ah iyo munaafiqiinta adduunka jooga baa imtixaanka laga qaadaya oo maxaad ugu gooni yeesheen waxaan ugu gooni yeelnay adduunka marka la joogan munaafiq waa in la tukadaa mu'minkii dhabta ahna waa tukadaa kan waa jihaadahaya kana waa jihaadaya waa la soomi waa la saladay waa la zakayn munaafiq iyo mu'min saadiqa waa isku laban yihiin adduunka qabriga marka la kala saaraya fitnadu iyo imtixaankan qabriga lagu qaadayo waxaa lagu kala saarayaa munaafiq iyo mu'min khaalis oo saadiq ah munaafiqu imtixaanku ku dhici oo afku kala qaadi haabuu dhihi marka budh baa ku bilaaban budh naareed muslimkana waxaa weeye waa badbaadaya waa masalo lagu kala sooco munaafiq iyo mu'min fitnatu lqabr halkaas iyagu mareen gaalo shuqulba kuma laha maxaa jira gaal markuu bannaanka joogo warkiisa waa caddaa maxaa laga imtixaani bay yidhahdeen gaal waka ilaahay qeyrkii caabudaha iyo kaniisadaha ku jira iyo budhaagay wixii la garan waayey iyo siikh iyo baktige imtixaankii u baahan maxay tahay halkaasay la mareen waad fahantay wadaadaha ra'yigooda wadaadkii la odhan jiray abu cabdillahi alqurtubi wa qabla abu maxamed cabdulxaq alishbiili garanaysan caanka iyo jamaaca min ahli ilmi wa ra'yu jumhuur ahli ilmi weeye ayagu waxay leeyihiin fitnatu lqabr gaal iyo muslim iyo munaafiq kulli way u taallaa waa caam axaadiistuna waxay taageerayaan axaadiista timidna waxay taageerayaan inay ra'yigan dambe ee caamka ah oo ah munaafiq iyo muslim iyo gaalgiisa waaweyn oo wixiisa caddaysta kulli fitnada way marahayaan ninna wuxuu aabaa lagu sii dhalaalin ninna waa la fadeexayno waa la kashifo waa munaafiqi mu'minna waa lagu karaamayn oo ku baasa la rabaa labadaa ra'yo marka waa min furuuci alcaqaa'id almukhtalaf fiiha way la soco la ikhtilaafa fi alcaqaa'id waa maquula baatila akthara min 100 mas'ala farciya caqadiyo khilaaf ka jiraa jirta marka min furuuci alcaqaa'id almukhtalaf fiiha bay ku jirtaa fitnatu lqabri yay ku dhacaysaa ahlu sunnaha dhexdiisa isku khilaafsan inta inaad fahanteen baan u malay